waxaa jira kaniisado dhowr ah oo Yurub ku yaala kuwaas oo laga dhisay lagana qurxiyay lafaha bini'aadanka. Hadaba waxa uu barnaamijkan daaran yahay xogo kaniisadahaas ku saabsan. kaniisadaha waxa ugu caansan mid ku taala magaalada Ifora ee ka tirsan Boortaqiiska. waa kaniisad yar oo laga dhisay 5,000 ilaa 6,000 oo qof lafahoodii, waxaana lafahan laga soo faagay meedadkii ku aasnaa tobanaan kaniisadood xabaalahooda. baadarigii arrintan ku fikiray waxa uu uga gol lahaa inuu dadka ku booriyo oo uu xasuusiyo in ay noloshu tahay wax laga tegayo, si uu ruuxdooda kor ugu qaado, macnadarrada noloshana uu qalbiyadooda uga dhaamiyo si aanay dhimashadu kol qulamaankooda uga bixin. waxaana kaniisadan marka la gelayo xagga hore kaga qoran gabay u dhigan: lafaha halkan ku sugan ayaanu nahay, adiga ayaanuna ku sugaynaa, amaba annagu waxa aanu nahay lafaha halkan degan, waxaana aanu sugaynaa lafahaaga. waxaa kale oo jirta kaniisad ku taala Jamhuuriyadda Tashiik. kaniisadan oo la dhisay qarniyadii dhexe waxa ay iyaduna caan ku tahay kaniisadda lafaha. waa kaniisad laga sameeyey 40,000 ilaa 70,000 oo qof lafahoodii. haddaba waxaa laga yaabaa in aad isweydiisid halkee ayaa lafaha intan tiro leeg laga keenay. waxaa la sheegaa sanadii 1278 miilaadiga goobtan oo ay xilligaas ka talin jirtay boqortooyadii Bohemia inuu boqorkii waqtigaa ka talinayay uu boobkii kaniisadda u diray magaalada Qudus si uu ciid uga soo qaado meesha ay aaminsan yihiin in Nabi Ciise lagu salbiyey. ninkii markii uu ciidii soo qaaday waxa uu ku filiyay xabaalihii wadaadada si ay barakadu wada gaadho. dadkiina markii ay ciidaas barakaysan warkeeda maqleen ayay ku wada dardaarmeen in marka ay dhintaan lagu aaso kaniisadan. waxaa intaas u sii dheeraa khalqigii badnaa ee tirobeelka ahaa ee ku geeriyooday daacuunkii madooba ee sanadadii 1347 ilaa 1352 qaaradda Yurub ku fiday. mar kale waxaa la sheegaa in lafahaas faraha badan lihi ay ka soo jeedaan dadkii ku dhintay dagaaladii Bohemiyiinta u dhaxeeyay ee socday 1419 ilaa 1434. sidaas ayayna dadkii meesha ku aasnaayeen ay u noqdeen kuwa aad u tiro badan. haddaba bilowga qarnigii 15aad waxaa xabaalihii laga dhex dhisay kaniisadan oo dhisme ahaanna ka koobnayd qayb hoose oo dhulka hoostiisa ah iyo qayb sare. waxaana qaybtii hoose lagu kaydiyey lafihii la soo faagay intii uu dhismuhu socday. qarniyo badan ayay lafuhu ku kaydsanaayeen xagga hoose ee kaniisadda ilaa laga soo gaadhay sanadkii 1870 markaas oo loo yeedhay nin farshaxanka iyo nashqadda aad ugu wanaagsan, kaas oo habeeyey islamarkaana ka qoray sharaxaado una nidaamiyey qaab qurxoon oo soo jiidasho leh. waxaa kale oo jirta kaniisad ku taalla magaalada Faro ee waddanka Boortaqiiska, taas oo la dhisay sanadkii 1816 waxaana lagu qurxiyey in ka badan 1,000 qalfoofood. qorshahana waxaa dejiyey boobabkii magaaladaas oo waxa ay si safan qalfoofka iyo lafaha ugu qaabeeyeen gidaarka si ay ugu muuqdaan tabti ay yihiin kuwa booqdayaasha fiirinaya, iyaga oo uga gol leh inay dadka dareensiiyaan nolosha in geedi laga yahay. sida oo kalena koonfurta galbeed ee waddanka Poland waxaa iyaduna ku taala kaniisad laga sameeyey lafo. waxaa la dhisay dhammaadka qarnigii 18aad. waxaa saqafka iyo gidaarada kaniisadda lagu qurxiyey qalfoofka iyo lafaha dadkii ku dhintay dagaalkii soconayay 1618 ilaa 1684 ee Yurub u dhaxeeyay. waxaana intaa u sii dheer dadkii kale ee iyaguna xanuunada, macluulaha iyo sababaha kale u dhimanayay. waqooyi bare ee dalka Jarmalkana waxaa ku taala kaniisad lagu magacaabo Swister, waxaana saqafka sare ee kaniisadaas ku qaabaysan ilaa 60 qalfoofood. kaniisadan oo qarnigii 15aad la dhisay ayaan weli la garanayn taariikhda qalfoofahaas lagu habeeyey, balse ujeedadoodu waxa ay ahayd sidii dadka iimaankooda kor loogu qaadi lahaa loona dareensiin lahaa macnadarrada nolosha. lafaha qaabkan loo dhisay kaniisadaha oo qura kuma koobna. halkan waa boqortooyada dadka dhintay. waxaa ku xardhan oo yaalla in ka badan 6 milyan oo qof lafahoodii. waa boqortooyo bedka dhulka ay ku fadhidaa uu yahay 11,000 oo kiiloomitir oo iskuweer ah. waxa ay ka hooseysaa magaalada Paris, qiyaasina kolka lagu daadegayo 130 jaranjaro ayaa hoos loo raacaa oo ilaa 5 dabaq oo dhisin ah u dhiganta. waa boqortooyo dhammaan dadka degani ay aaminsan yihiin, kuwa soo booqdana ay la mid yihiin. waxaa lagu tilmaamaa xabaasha adduunka ugu weyn. dadka halkan ku aasan waxa ay ka mid ahaayeen malaayiintii qof ee Faransiiska xanuunada iyo macluusha ugu leeday. dadkii Paris deganaana markii ay meedadkan badan iyo daadadkan lafaha soo faagaya ay khaati ka istaageen ayay bilaabeen sanadkii 1777 in ay dhulka hoostiisa lafahaas u raraan. waa goob argagax iyo baqdin leh oo dadka soo booqday jawi kale dhex muquurinaysa. haddaba daawade, inkastoo ay diin ahaan inaga reeban tahay in aynu meydka sidan ula dhaqanno, maxaa yeelay qofku sida uu noloshiisa sharaf u mudan yahay si la mid ah ayuu kolka uu geeriyoodana xurmeyn u mudan yahay. waxaa laga yaabaa in aad isweydiinaysid maxay tahay ujeeddada barnaamijkan laga leeyahay. 2 ujeeddo ayaynu daawada ka leenahay. marka koowaad bal waxoogaa miriro ah
ka socdaan noloshan aad iminka ku nooshahay ka fogow xaaladda aad ku sugan tahay oo kaalay jawigan mid la mid ah u soo dheelmo goobahan ay reer aakhireedku degan yihiin bal u fiirso lafaha nolosha ka madhan ee argagaxa leh lafaq oo warayso qaar ka mid ah kuwa halkan kaaga muuqda bal goonni ula bax fiiri sida ay u foolxun yihiin ka warayso maalmihii quruxda badnaa ee ay soo mareen oo ayna suurtagal tahay in ay ahaayeen kuwa tujaara ama madax ah waxaa hubaal ah sidaada oo kale in ay nolosha mustaqbalka lahaayeen riyooyin waaweynna ay lahaayeen oo ay ka soo jeedeen qoysas jecel iyaguna ay jecel yihiin ay ahaayeen kuwa xarrago iyo muuqasho jecel ay doonayeen guul adduunyo inay xaqiijiyaan sida oo kalena ay ahaayeen kuwa qab weyn oo qumanuhu uu qoortooda u sugan yahay fiiri daawade maanta caynka ay yihiin ka feker haddii ay jaaniska aad maanta haysatid mid la mid ah oo ah inaad nooshahay weli haddii ay heli lahaayeen maxay samayn lahaayeen bay kula tahay ma waxa ay ku daali lahaayeen raalligelinta dadka iyo kasbashada jacaylkooda mise dantooda iyo tan aakhiradooda ayay u miidaan dayi lahaayeen ma waxa ay wakhtiga ku lumin lahaayeen ka fogaanshaha ilaahay mise kol kasta toobad iyo acmaal suuban ayay mashquul ku ahaan lahaayeen ogow oo xasuusnow daawade wakhti yar kadib in aad lafo tahay aan idhaahdo in aynu labadeennuba nahay lafo god yar ku duugan islamarkaana aynu halkaas camalkeenna ku maalayno nin la tumay tala joogtaa innaga ayay iminkeenala gudboon tahay qabashada waxa ay tahay in aynu qabanno intaas kadib daawade ma isweydiinaysaa talow waa kii rasuulku yidhi salaallahu calayhi wasalam qabrigu ama beer jannaad weeye ama waa god cadaabeed ee mar haddii dadkan lafahoodii la arko sidee baa loo abaalmarinayaa intaynaan daawada ka jawaabin su-aashaas ila xasuuso qofku inuu 4 nololood maro nolosha koowaad waa ta uurka hooyadii uu ku jiro waa nolosha ugu wakhtiga gaaban leh gebigeeduba waa 9 bilood oo keliya u yara fiirso noloshaasi 100% way ka duwan tahay nolosha qofku uu u dhasho nolosha labaad waa ta aynu hadda ku noolahay oo waa ay ka waqti dheer tahay tii hore balse iyaduna ma badna oo hadday ugu dheeraato waa 60 sano waxa uu qofkaasi kadibna u wareegaya nolosha saddexaad oo ah ta qabriga noloshan saddexaad way ka waqti badan tahay labadii hore waana ay ka duwan tahay 100% nolosha afraad ee uu qofku u sii talaabaya waa ta qiyaamaha ama ta aakhiro saddexda nololeed oo horeba way ka waqti dheer tahay oo iyada xilli kama dhammaado waana ay ka duwan tahay 100%. daba halkaas waxaa inooga muuqda in aanay suurtagal ahayn afarta nololeed in midna ta kale looga tilmaam qaato sababtoo ah dhammaantoodba isku mid ma aha caqligeennuna ma awoodo in uu sawirto waxa kale oo aad ila ogaataa daawade qof kasta waxa laga abuuray hooyo iyo aabe walaalo ayuu la dhashay oo uu dhiig isugu jiraa waxana ay ka soo jeedaan tol iyo qabiil qofku jidhkaas uu ka soo jeedo iyo dhiiggaas uu ka soo firmayba waa ka sababa in ay isjeclaadaan isku tudhaan iskuna naxariistaan sida oo kalena ay isku qaraabo keelaan haddaba jidhka caynkaas ah ee tolka iyo cidda ka soo jeeda caalamka aakhiro waxba kama taraayo yacni loogama baahnaa keliya waa jidh loogu talagalay qofku inuu caalamka labaad ku joogo tusaale yar qofka waynu ognahay inuu baaba'o oo uu googo'o maalmaha ugu horreeya ee qabriga la dhigo marka suurta qiyaamo la afuufana laf qura oo ciidda ka badbaaday ayaa eebba jidh cusub uu ka abuurayaa jidhkaas cusubi waa mid aan ehel iyo qaraabo toona ka soo jeedin waana taa sababta aanu qofku aakhiro ehel iyo qaraabo toona dan uga gelin ee uu uga carari doono daawade guntii iyo gabagabada barnaamijkeennan maalmaha kooban ee inta aynu lafaha isku beddelayno inooga hadhay aynu samayno wax raandhiis wanaagsan inoo ah